شرفت السود وهذا أنا إذا ياري مانتي شركة شرائط وحكو سابسين هي رمضان كريم مركوره مد الصوماليات مانت قارن صومي شلنا قار بلابي maalintii labaad qaar ay u tahay qaarna maalintii koobaad u tahay gobolka mudug dadka jooga dhamaantiis waa salaamaya aad iyo aad baan Ramadaanka waxaan leeyahay Ramadaankiisa kale nabad iyo barwaaqo ku gaara waxaan rajaynaynaa in kooxda nabadiidka ahayd oo Ramadaanka dadka dhigiisa ku cibaadeysan jirtay ay bishaan ay naga guuleysan oo ciidamadayada ammaanku ay elid walba ay ka soo gal lahayn ummadaas ay ilaaliyaan inta hadaan ugu gudbo shirkaygu wuxuu ku saabsan yahay maantay arintii ka dhacday doraad xamar oo inta bilaaban baan ka sii dignay inaan faahfaahin ka bixiyo inta aan ka garanayo sababtu waxa weeye waxaan garanayno ayaa lagu dheelayaa oo la rabaa in dalkeena meel uusan istaahilin la geeyo marka hore baarlamaanka yiri waxaan sameeynay muddo kororsi oo golaha shacabka sharciyan isagu waa dhacay 27 December buu dhacay waqtigiisa waa dhamaaday waxa ay daliishanayaan oo yiraahdaan muddan u joognaana baarlamaanka kan ka horeeyay bishii 2016 ayaa oo jawaari uu gudoomiyaha ka ahaa ayaa waxay sameeyeen faqrad kamida qodobka 6aad فقرتي labaad lagu daray oo ahaa baarlamaanka waxa bedeli doona baarlamaan la soo doortay iyadoo loola jeedo inuu yahay inaan faakum dhicin maadaama August doorashada processkeedu uu socday aan laga gaarsiin karin arintaas waa hadii cid ku joogayso baarlamaankii sagaalaad ba ku joogi lahaa oo markiiba bil kadib ama laba bilood kadib doorashada aaday sharciyan marka waa dhaceen waa marka koobaad ومركز لبعض هذي حتى شرع أهان لهاين مدحوينها وحا ودا دورتي لبدا أقل قولها شعب كأيو أقل كسرع وإسكودن صدح بقول إيا لبعتن إيا السقال حبنوط أيا دورتي مركز صدحات مدحوينها وحا لغو دورتا أقلبيتن صدح ميلود أو لبا وأترادا لبدا أقل مركز لإسكود دراه laba boqol iyo 19 waxa fadhiya golaha shacabka sida ay sheegeen ma huba xataa ma dhamaan dadku intaas aan filayay laakiin sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka inta ku dhawaaqay baa jirta inay hadda muddo kordhinta sameeyeen oo ay qaraarkan soo sameeyeen uu yahay 149 waa 50+1 10 qof lagu daray marka halkaas waxa ka muuqata labadii aqal oo wada doortay madaxweynahana mid baa maqnaa tiradii madaxweyne dooran kartay ama qaraar caynkaas oo kala sameyn kartay oo ah tutad saddex meelood oo labana meesha ma fadhin sharciyadooduna markii horeba ma jirin waxayna xusid midan guddiga doorashada oo ay dib ugu cesheen hawsha ay yiraahdeen 2 sano soo socota guddiga doorashada wadaya waxay ka dhacaysaa mandate-ka ileen waxay dhacaysaa bish 7 waqtigoodu wuxuu ku egyahay bish 7 ee sanadkan hadda aan ku jiro oo inaga xigto May iyo June kadib guddiga doorashadu wuxuu rabaa bedelid guddi cusub in la sameeyo hay'adihii dooran lahaana waa hay'adahaas expire-ka waxa muuqata marka expire kala u laabtay inay tahay oo ay wax iska hawaatay sharciyad oskanayn waxa rajaynayaa gudoomiyaha guddiga iyo guddiga doorashada oo qaranku inay fahamsan yihiin intaasoo ay arintaas qayb ka noqon Soomaaliya godku dhaceeda waxa aad cajiib u noqotay madaxweynuhu inuu xalay saxiixay بعد المغرب ama بعد الافur qaraarkii waxay ka muuqataa halka dabiinimada haysata maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne qaraar ma saxiixo madaxweyne wuxuu saxiixaa sharci xeer buu saxiixaa madaxweyne qaraar baarlamaan madaxweyne ma saxiixo waxa iska muuqata inay iska habeenimo tahay oo wuxuu dhan ay yihiin wax mugdugud ah oo aan sharciyad la cuskanayn ee la rabo dalkan in meel qaldan lagu aadiyo marka inuu hadii maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dabin yahay anigu waa ogaa dadka Soomaaliyeed oo og yihiino hadii dabiinimadiisu buuggii uu teestigu ku qalin jabiyay 2009 buuggu Soomaali ka qoray Soomaali dib wada akhrisato ha ogaato markaas ay ogaanaysaa fahmada uu leeyahay arinta cusubda midan maxay tahay markaan inta ugu gudbo wuxuuna sharci ahayn ma saxiixa madaxweynuhu inay sharci darro yihiin oo meesha wixii ka dhacay
marka in kasta si kasta loogu barbaaro ay ahaayeen wax aan sal iyo raad toona lahayn waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan u sheegno Soomaaliya waxay soo martay 5 kumeel gaar dawladdan markii la soo dhisay dawladda kumeel gaarka ah oo lagu soo dhisay Kenya waxay soo qaadatay ahad qarameed 71 qodob ah dawlad kumeel gaar ah oo dib u heshiisiina ahadiga kumeel gaarka ah waxa laga gudbay 2012 August kowdeedii waxay ka baxday kumeel gaar siyaasi ah waxaan ku jiray 5 kumeel gaar siyaasi ah kumeel gaar dastuuri ah kumeel gaar amni ah kumeel gaar dhaqaalaha ah iyo kumeel gaar cunaqabataynta hubka ah intuba kumeel gaar bay ahaayeen waxa la rabay 8 sano in kumeel gaaradan kala laga baxo kumeel gaar siyaasi waxaan ka gudbay kumeel gaarka siyaasiga ah oo ah Soomaaliya inay tahay dawlad inay tahay wax saxiixi karto inay heshiis gali karto inay tahay dawlad caalamka la fariisan karta in safaaraduhu Soomaaliya iman karaan xilliga safaarada Soomaaliya jooga way yaraayeen haddana safaaradaha adduunka oo dhan waxay joogaan xamar laakiin wali waxay ku jirtaa kumeel gaarka qayb kamid ah waxay ku jirtaa kumeel gaar dastuuri ah dastuurku waa kumeel gaar waxa la rabay inagu inaan ka baxno oo dastuurka la dhameystiro 2012 markii kumeel gaarka laga baxay isla 2014 ama 15 dastuurku uu dhameystiran yahay la rabay waa in ka baxno kumeel gaarka sharciga ah kumeel gaarka aan ku jiro kala amniga ah kumeel gaar amniga aan ku jirnaa Soomaaliya waxa waardiyeeya oo jooga ciidamada nabad ilaalinta AMISOM oo mandate-kooda uu dhowr jeer la cusboonaysiiyay hadba markuu dhaco lagu daro oo ku joogay markii hore mandate intan ka yar oo la maleynayay Soomaaliya 3 sano intay joogan kadib inay ka baxaan oo Soomaaliya ciidan yeelato laakiin waa ahaan weyday oo hadda muddo dheer ay Soomaaliya joogan ciidan waxayna waardiyeeyaan goobaha muhiimka ah xarumaha dawladda madaxtooyada airportka dekada iyo hay'adaha caalamiga ah oo safaaradaha iyo xalana meesha ay degan waxay ku degan yihiin maaha ciidan Soomaaliyeed waa ciidan AMISOM waxa la rabay marka in kumeel gaarka laga baxo oo intaan ciidan qaran dhisano aanu ka gudubno oo ciidanka AMISOM aan saarno dalka nabad laga dhigo oo la gudbo aan ku noqdo dastuurka kumeel gaarka dastuuriga ah wuxuu u baahan yahay isaguna looga bixi karaa wadanku inuu nabad noqdo dib u heshiisiinta dhameystiranto oo Soomaaliya qayb kamid ah oo Soomaaliland ah ayaa 30 sano ka hor waxay yiraahdeen kamid maahin marka in xal laga gaaro kamid ahaanshaha ama kala go'a Soomaaliland ba dastuurka laftiisu waxa nabiga kumeel gaarka waxa nabiga iyo referendumkii loo sameyn lahaa oo shacabku ay codeyn lahaayeen oo dalka in badan oo kamid ah ay shabaab joogaan ciidamada AMISOM wali waa joogaan ciidan qaran ma leeyihiin oo sax ah lama dhisin ciidankii kala wareegi lahaa AMISOM maxaan ku iraahdaa kala wareegi lahaa amniga Soomaaliya wali ma dhisan waxyaalaha la soo tababaraa waa iska ciidamo oo shabaab inay ula diraan maahane ciidan qaran oo isku tababartay oo 18 kun lagu heshiiyay ah oo la isla xareeyay oo 2 sano xiro kooda jiray oo qalabkooda u dhameystiran yahay oo awoodda AMISOM oo kala leh Soomaaliya ma laha ilaa hadda marka waxaan ku jiraa kumeel gaar amni waxaan ku jirnaa kumeel gaar dhaqaale Soomaaliya waxa lagu leeyahay dayn dhan 5 bilyan oo ay dawladii hore uga tageen dawladii muddada dheer haystay wadanka ay uga tagtay oo iyadana waa kumeel gaar dhaqaale dalka dhaqaalihiisu waa liitaa miisaaniyadeeda waxa la kaba 74% waxaan ma qaadan karo dayn wax ma deysan karo waxaan ku jiraa kumeel gaar dhaqaale iyadana waxa la rabaa inaan ka shaqeysano oo inagu ka baxno oo deyntan laga cafiyo wax badan baa laga soo qabtay runtii xukuumadii Xasan Cali Khayr uga mahad celinayna meel fiican bay soo gaarsiiyeen laakiin waxaad moodaa hadda wuxuuba inay meel daran aadeen waxaan ku jirnaa cunaqabatayn hub oo ma soo gadan karo waxay kamid tahay kumeel gaarka waxaan uma soo gadan karno hub dibadda kama soo iibsan karo waxaan nahay dal aan loo cunaqabatayn la saaray 92 almost 29 sano ayaa waxaan ku jirnaa ama 30 sano waxaan ku jirnaa cunaqabataynta hubka marka dalka intaas awoodiisu xadadan tahay oo la rabay 8 sano ka hor marka kumeel gaarka siyaasiga laga saaray inay kii dastuuriga ka baxdo kii amniga ahaana ka baxdo kii dhaqaalana ka baxdo kii cunaqabataynta hubkana ka baxdo maanta markay 8 sano joogto ay hal tilaabo qaadin hadii sharci darro ay damcaan inay sameeyaan oo dalku u sameeyo khatarta aan ka digayno aan ka baqayno inuu nagu dhacdo waxa weeye oo hadaan ka badbaadna aan nasiib leenahay adduunku inuu kumeel gaarka nagu celiyo ilaa 8 sano fursadaan haysanay oo la rabay intaan inaan soo xalino oo inagu aan qabsano intiina xabad kama aanu qabsan marka waxaan ka cabsi qabnaa adduunku inuu nagu celiyo kumeel gaarkii oo uu dib noo celiyo leeyahay dalkaana waa kumeel gaar
shirarkii hadda xamar lagu kala tagay oo shalay madaxweynaha Puntland iyo kii Jubbaland oo bil fadhiyay halka oo u fadhiyay halka Soomaaliya iyo in maxaan ku iraahdaa Soomaaliya xal laga gaar ama doorasho la aado shalay ku kala tageen umana maleynaya mar dambe inay aadayaan xamar laana kuma noqon karaan meel lagu noqon karo ma aha waxaan ka baqayaa shirka labaad in la yiraahdo Djibouti la isugu tago dalkuna uu ku meel gaarka dib ugu laabto oo rajo xumi ay dhacdo aw rajo la qabay kor baa loo socday waxaan ka digaynaa marka ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed inay waxa kan ay garab siinin si aan dalku ugu dhicin bahol inaan u jeedin waxaan arkay rag siyaasiyiin ah oo runtii wax garanaya nin saaxiibka siyaasi ah oo reer Kenya oo madaxda Kenya kamid ah oo aqoon leh oo siyaasi weyn ah oo farmaajo ku tartarsiinaya farmaajo adduunka wax kaama gelin cid kuma xukunto UN kuma xukunto James Swan kuma xukumo ambassadorada kuma xukumaan maxaan ku iraahdaa waxa rabti samee xor baa tahay xorriyad baad leedahay waxba kama jiraan farmaajo miisaaniyada uu ku shaqeeyo waxa weeye 300 milyan Nicholas Kayna 2 bilyan buu ku shaqeeyaa ciidamada farmaajo wardiya Nicholas Kayna mushaarka siiya Kenya oo miisaaniyadeeda la kaba 5% oo wadanaad u dhaqaale badana oo uu hadda ninkaas odaga ahay uu ka hadlayo madaxdiisuna kamid ah wadanka xilligaas 2007 markii uu ka dhacay dagaalku ka dhacay dawlad wadaaga loo dhis kursi aan dastuuri ahayna waa la sameeyay prime minister Raila Odinga laga dhigay adduunku dawladii isku filaan weyda oo siyaasiyiin isku filaan weyda gacanta ay galisaa dawladda badan bay gacanta soo galiyay adduunku ma aha in adduunku iska fiirsanayo Soomaaliya kuma taalo meel cidla ah dad isaga socdaan ma shabaab ma Soomaaliya waa dad shuruuc leh adduunka xiriir la leh adduunku dan kale yahay adduunkuna mushkiladeeda in iska xaliyaan ay rabaan marka xorbatiin waxa rabtaan sameeya cid adduunka ka yeelisa ma jirto marka waxaan leenahay yaana la marin habaabin oo ninkaas dabiinka ah yaan wada khaldan dadku u tilmaamin dadka Soomaaliyeed siyaasiyiinta wax garanaya yeysan masaalix khaas ah inta fiiriyaan wadada mugdiga ah oo farmaajo qaaday aan umada lagu ruuyo umada Soomaaliyeedna waxaan rajaynaynaa in ay arintaas ka fiirsadaan oo ay waxa kan isku meel looga soo horjeesto si aanan godka farmaajo nagu qarkiisa aan saaranahay aanan ugu dhicin oo aan anagu qayb uga noqon inaan ku dhacno Puntland mowqifkeeda dabcan waxa sheegi doona madaxweynaha oo safar ku soo laabtay oo wakiil nooga ahaa arrimaha siyaasadda oo dhan Soomaaliyana wakiilka amaanta inuu badbaadiyo oo Puntland ay badbaadiso madaxdeeda ay badbaadiso rajo badan baan ku qabnaa iyadaana ka jawaabi doonto dabcan madaxweynaha shal noo soo laabtay ilaahba ma hadla haduu soo laabtay isagoo dalkiisa nabad u soo laabtay iyo isagoo nabada wada tashi Soomaaliyeed iyo Soomaali inay meel gaartana Puntland hormuud bay horena uga ahayd waana ka noqon doontaa